muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay 3 qalad oo ay sameeyaan YouTuberada cusub midaasi oo ka hor istaagto inay guulo waaweyn ka xaqiijiyaan YouTube-ka balse waxaan hubaa haddii uu saxo qaladaadkan inuu ku guuleysan doono muuqaal samaynta iyo algorithm-ka YouTube-ka haddii aan tusaale idin soo qaato channel A iyo channel B waxay soo dhigaan muuqaalo isku nooc ah balse channel A ayaa ka subscribers badan channel B sababtoo ah channel A wuxuu saxay qaladaadkan qaladka koowaad doorashada mowduuc qaldan waa markii ay islahayn muuqaaladaada iyo niche-ka channel-kaaga wax uu yahay taasina waa qalad weyn waa inaad doorataa saddexdan shay ee soo socdo midka koowaad mowduuc lagu raadinta badan yahay midka labaad mowduuc trending ah oo markaas socdo midka saddexaad waxay dadku u baahan yihiin haddii aad intaan samayso dad badan ayaa kugu soo xirmi doono midda labaad thumbnail quman tusaale labadan thumbnail mid wuxuu helay views fiican midna waxba ma uusan helin sababtoo ah midka viewska fiican helay wuxuu ka dhigay thumbnailka mid professional ah walibana clickable ah wuxuu isticmaalay colors ka soo horjeeda sida cagaarka iyo gaduudka waxa kale oo isticmaalay far la fahmi kara taasi ayaa ka dhigtay inuu helo views fiican haddii aad rabto inaad hesho dad kugu soo xirma waa inaad iska hagaajisaa thumbnailkuna waxaa la dhahaa wuxuu ka muhiimsan yahay muuqaalka waana midda keenta in muuqaalkaaga uu helo daawasho fara badan midda saddexaad ahna midda ugu dambayso oo ah joogtayn wax walba la joogteeyay ayaa wax faa'iido dhala dhalinyarteena Soomaaliyeed markii ay YouTube furtaan waxay jecel yihiin muuqaalka koobaadba inay views fiican ku helaan muuqaalka labaadna lacag ka sameeyaan midaasi ma suurto galayso wax walba la joogteeyay ayaa faa'iido dhalo waa inaad si professional u edit gareysaa muuqaaladaada waa inaad juhdi ku bixisaa waa inaad dadaal ku bixisaa waa inaad joogteysaa waa inaad channel-kaaga active ka dhigtaa oo muuqaal mar walba soo gelisaa sid badan ay kugu soo xirmaan markaas aad ku guul gaari kartaa balse wax hal maalin lagu gaaro ma jiraan wax walbana way fududaanayaan balse waxay adag yihiin maalinka koowaad waxay u baahan yihiin isku day fara badan muuqaalkeena maanta ayuu ku egyahay hada wasalaam peace and love